xog sir ah Haaland oo lagu wado inuu bedelo Vinicius haddii uu kooxda Real Madrid ka tago. Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheynayso inay la soo saxiixato weeraryahanka Manchester City, Erling Haaland. Haddii xiddiga reer Brazil Vinicius Junior uu u dhaqaaqo Realka Sacuudiga, Vinicius ayaa muddo 2 sano ah la xiriirinaya kooxo ka dhisan Bariga Dhexe, iyadoo mustaqbalkiisa Santiago Bernabeu uu weli mugdi ku jiro, maadaama uu 2 sano uga harsan yahay qandaraaskiisa haatan, isla markaana uusan weli heshiis cusub u saxiixin kooxda. Sida ay qortay Marca, xaaladda Vinicius ayaa isbedeshay tan iyo markii uu Xabi Alonso la wareegay xilka tababarnimada xagaagan. Alonso ayaa dhowr jeer kursiga keedka ku reebay ciyaaryahanka, wuxuuna si cad u sheegay inuusan damaanad u hayn boos joogto ah. Hadda waxaa la sugayaa in 25 jirkan uu hoos u dhigo dalabkiisa mushaar, ama uu cadaadis saaro maamulka si ay u iibiyaan, taasoo fursad siin karta Real Madrid inay si dhab ah ugu dhaqaaqdo oo ay isku daydo soo qaadashada Erling Haaland. Door wanaagsan saaxiibayaal, warbixintaas koobanna waxay qayb ka ahayd barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan maanta ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.